السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada qalin cusub iyo wanasbada kram maad waxaa rabay inaan kala bixiyo laba kelmad oo aad iyo aad iskugu eg markii laga hadlayo cilmiga oo madaxa iyo cudurrada maskaxda galaan labadan kelmad ma ku jiraan laakiin waa koosgarey karaan because dadka badankood ma kala garanayaan waxay ku kala duwan yihiin labada kelmad aaday iskugu eg tahay haddaa u fiirsatid wadamada badankood waxay dhahayaan so waxaa waaye horta labada kelmad waxay yihiin mid waxa waaye equality midna waxa waaye equity so kelmada waxa waaye equality iyo equity equality waa kulligeed waa maqalna waxa waaye markay dadka dhan siman yihiin so masalan maraykan markaa ku nooshahay waxaa lagu dhahaa arday kasta cunug kasta oo gaaray da-da oo iskoolka wuxuu xaq u leeyahay public school inuu iskool dhigto so xaq waay waa labada siman yahay aa lagu dhahaa so equity marka waxa waaye hala simnaadee iskoolaadka dhan oo wadanka ku yaalin ma siman yihiin waaye so masalan waxaa arkaysaa haddaa fiirisid magaalada waxay kala qabtaa xaafad oo lacag leh iyo xaafad oo lacag lahayn so iskoolka oo xaafadda lacagta leh ku yaalo iyo iskoolka xaafadda lacagta lahayn ku yaalo ma siman yihiin waay marka meesha oo equity markii laga hadlayo taas waay so waxaa arkaya iskoolka lacagta leh xaafadda oo lacagta leh ku yaalo waxay haystaan more resources dhaqaalahooda uu fiican yahay so masalan waxay hel computerad cusub ay qabaan iskoolka waxa waaye building nadiif ah cusub macallimiinta lacag fiicanaa la pay gareeyaa waa lagu dadaalaa ilmaha markii macalinka uu faraxsan yahay oo lacag fiican oo helayo benefit fiican oo qaato wuu ku dadaalaa ardayda because waxa waaye walwal dhaqaalo ma qabiyo so waxa waaye marka so iskoolkaas iyo iskoolka oo masalan neighborhood yaalka oo faqriga qabaan oo lacag haysanin markii ay ilmaha dhigtaan so iskoolkaas waxa waaye macalinkii stressed waaye dhaqaalihiis wuu yar yahay iskoolkan oo lacagta leh markii oo 20 cunug halkii macalin 20 arday oo haasto iskoolka maybe inuu 30 ama 40 arday oo halkii macalin oo wax barayo so of course macalinka maxaa bani aadan waaye misqaybin karo more than that so wixii knowledge oo ardayda sii haye wayaraha cunug kasta waxaa gaaraa waxyar waxaa kaloo la fiiriyaa masalan ardayda haddii arday oo waxa jira hadduu masalan oo like learning disability qabo oo like kastoo culus oo ayo wax fahmaynin ama ayo wax baranaynin cunugaas wuxuu u baahan yahay attention oo one on one ah so goonin halal fadhiisto wax la baro ama markii ilmaha markii hal mar loo sharxay isaga 2 ama 3 jarna lagu soo celiyo u fahmo so macalinka waa 40 cunug hayo ma samayn karaayo war iskoolka oo dhaqaalihiisa fiican yahay waxa waaye way awoodaan inay macalin kale keenaan oo galaaska soo galo oo cunugaas siita oo la shaqeeyo maybe volunteer yaal inay helaan oo caawino so wadan kasta wuxuu ku dhahaa equality aa jirto dadka dhan way siman yihiin laakiin equity ma jirto so maybe yaa xaqa qaanuunka wuxuu sheegaa inay wada siman yihiin dadka laakiin markii la fiiriyo resourceska dhaqaalaha ay dadka haastaan kama simno dhinacaas oo iskoolaadka dhinacaas kama simno so waxa camal waaye markii lagu dhaho I don't know like marka masar jooge gabadha iskoolna dhiganaysa oo jiis ah gabadhii kursiyaa lagu wadi jiray so iskoolkii wuu ogolaaday inay gabadha soo gasho ay wax barato mushkilada waxay soo biyaan waxa waaye laakiin iskoolka waxa ma laha elevator so like wish ma laha gabadha kursiyaa lagu qaadaa hooyadad iyo aabaheed ilaahay jannada ha geeyo way qaadi jireen kursiga inay isla qaadaan subaxii ay soo saarayaan jaran jarta iskoolka markay dhigatay ee dhammaysa haddana galabtii waa imaahayaan waa qaadayaan gabadhaas waxay ahayd markaani wadanka soo tagaaye waxaan 6 camal ahayn ama 7 no waa ka badnaa no gabadha anaga 6 soo dhigan aniga 6 soo dhigan markii dugsiga aan gaaray waa ka guuro iskoolka waa ka bedeshtay ay muu malaynaya inay dugsiga aadi karaysa gabadhaasayto because iskoolka hadduu lahayn elevator ama wish oo dadka curyamiinta ah loogu talagalo oo caawinayo si ay wax u bartaan then equity ma jirto waxa ma isku hal maaha dadka hay dhiheen ani iyo qof 6 qabto ama maskaxdiis kaamil tahay ama xibbi oo wax baran karo oo ordi karo iyo qof jiis ah waxa dhahaysaa waa siman yihiin laakiin qofkii jiiska ahay wixii qalabkii u baahnay masalan si oo la tartamo qofka 6 qaba ma aqan siinin so equity ma jirto so the reason aan labadan uga hadlayo maanta waxa waaye waxaan rabaa inaa fiirisid cunugaaga haddii uu qabo
baahi dhinac oo kaliita ay jirto iskoolka caawinaad ma uu sameynaya equity ma jirtaa cunugaaga waxa uu u baahan yahay needskiisa ma la niid gareynayaa meesha uu ka liito ma laga caawinayaa mise waxaa lagu dhahoyaa cunug iskuulka ku dhigtaa equality aa jirta dadka dhan way siman yihiin because dadka maybe inay buugaa siman laakiin qof kasta waxay helaysa ma simna anyway I wanted inaan ka hadla just equality equity so ka fiirsa xaafadaada fiiri equality ma ka jirta mise equity ka jirta equity haddaa qabtiin waa fiican tihiin haddii oo dadka ay siman yihiin oo dhaqaalaha siman yahay oo cunug kasto needskiisa la miid gareynayo we good haddii la miid gareynaynin dan inaa ka hadashid waayo cunugaanita maxaa u sugi kartaa yani iskoolka maxaa u qabanaysaa muxuu qabanayaa si oo cunugaaneeto baahidiisa u tiro so aanoo hadalka idinku soo dheeraysnin waxaa rabaa inaa idin soo jeediyay intaas yar waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu